السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل تونا عشان تواشيدا قيمها هي قدر أنت يشرف طبعا نجم مدن يكون فلان بيج كنا وحنا سر رسمي هذا كوسو قد بدنا ورك وقدم بي قبل كستي دور الدجان كصوماليا دلك إثيوبيا قبل كستي دور الدجان كصوماليا إثيوبيا وحد قال له حجر وكل أحمر اسمه ملك عفرته أو ور أوسكو سوق هذا دجانا كترسن قبل كستي وحنا هالكاسي لجارسي إنه فربنا كترسن عيدا كنيو بوليس كاسي هالكاسي أمان كودوس وعن شعب كوسو قبل كستي دور الدجان كصوماليا دلك إثيوبيا warbixin rasmiga ee saaka naga soo gaaray waxay si rasmi ah u tibaaxayaan in gabi ahaanba xaaladda guud ee deegaanadaasi ay xilligan tahay mid aad u fiican walow ay jiraan dhimashada dhaawac soo kala gaaray labada dhinac walow ay jiraan in maleeshiyada hubeysan oo ka tirsan dadka deegaankaasi ku sugnaa gobolka City ay iska caabin xoogan kala kulmeen isla markaana ay iska caabiyeen maamulka Cafarta oo war ku soo qaaday deegaana ka tirsan Itoobiya gaar ahaan gobolka City wararka rasmiga ah haatan soo gaaray waxay si rasmi ah u tibaaxayaan inay jiraan dhimashada dhaawac soo kala gaaray labada dhinac walow ay jiraan in Cafarta laga laayay rag fara badan markaan ay jiraan dhibashada dhaawac fara badan oo soo gaaray ismaamulka Cafarta war uu isku soo qaaday gobolka City ee dowladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya saraakiil ka tirsan ciidanka New Police oo goobta dagaal ku dhaxmaray ismaamulka Cafarta iyo sidoo kale dadka shacabka oo iska caabin kala kulmeen Cafarta waxa ay sheegeen ciidamada ka tirsan New Police halkaasi gaaray in ay shacabka amaankooda ay sugayaan isla markaana ay cid kasta oo qalad ka wada deegaanka ka tirsan Itoobiya xilligan gacan bir leh lagu qaban doono waxaan wararka rasmiga ah intaas ku dirayaan inay jiraan ciidamada ugu tiro badnaa oo ka tirsan ciidanka New Police inay gaareen deegaanadaasi ay dagaalku muddooyinkii dambe ku dhaxmaray Cafarta iyo sidoo kale ismaamulka dadka deegaanka ku sugan gobolka City waxaana dadka deegaanka oo baahinta qaarkood la hadlay baraha bulshada oo bixin kala duwan soo dhigay waxayna aan ka soo xiganay sheegayaan inay jiraan in ay iska caabiyeen maamulka Cafarta oo doonayay in deegaanadaasi ay qabsadaan isla markaana ay dadka deegaanadooda ay ka saaraan ismaamulka Cafarta ayaa dhowrkii bilood ugu dambeeyay weerar culus ku soo keenay gobolka City ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ma ahana markii ugu horeysay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan gobolka City ay Cafarta weerar culus u geysato warbixinada rasmiga ah haatan si rasmi ah soo gaaray waxay si rasmi ah u tibaaxayaan inay jiraan in ciidamada New Police halkaasi gaaray isla markaana ay sheegeen inaysan markaa khilaasalkaasi ka dhicin isla markaana ammaanka guud iyo sidoo kale nabadgelyada gobolka City ay xilligan gacanta si toos ah u hayaan ciidanka New Police ee dowladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya waxaana jirta in Cafartu dhowr jeer hore ay isku dooday inay halkaasi weerar ka geystaan isla markaana xasuuqeen shacabka ku soo gobolka City si ay halka deegaanada ay halkaasi ay shacabku ay ku dhaqan yihiin si ay la wareegaan Cafarta maaha markii ugu horeysay deegaanka ka tirsan Itoobiya weerar ku qaaday isla markaana ay la wareegto deegaano badan ka tirsan Itoobiya waxaa jirta in Cafartu muddooyinkii dambe ay rabtay in weerar ku qaado gobolka City isla markaana weerarkii ugu dambeeyay ay ku qaadeen gobolka City ay kala kulmeen alqaada aad u xoogan iyo sidoo kale in halkaasi lagu xasuuqay ciidamo fara badan ka tirsan ismaamulka Cafarta dadka shacabka oo halkaas ka awlay ayaa iyaguna sameeyay iska caabin xoogan isla markaana ay ka saareen deegaano fara badan ay rabeen inay qabsadaan ismaamulka Cafarta isla markaana ay ku guuleysteen shacabku inay iska caabiyaan ismaamulka Cafarta oo doonayay in deegaano fara badan ka tirsan gobolka City ay la wareegaan insha Allah warbixinada dambe ayaa ku dawanta warka soo kordha ismaamulka Cafarta iyo sidoo kale dalka soo dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya qayb ka mid ah iyo sidoo kale gobolka City oo weerar xoogan ay ku qaadeen ismaamulka Cafarta